kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka wararka Soomaalida. waa 5 bisha shanaad sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee aad ku maqli doontaan warkayagana waxaa kamid ah shirka Garowe oo la isku mari laayahay iyo madaxweyne Farmaajo oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada. dad shacab oo qasaare xoog leh ka soo gaartay gaari ay saarnaayeen oo miina kula qaraxday duleedka Muqdisho. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo go'aan lama filaan ah ka gaartay kiisas culus oo loo heysay saraakiil ka tirsan dekedda Muqdisho. al-shabaab oo afduubtay mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland waa kuma mas'uulkaasi magaciisa iyo xog dheeraad oo ku saabsan sababta loo afduubtay ayaan idiin soo gudbin doonaa. safiirka Djibouti ee Soomaaliya oo ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti iyo tallaabo ka careysiisay Djibouti oo ay villa Soomaaliya ku dhaqaaqday. haddaba waa maxay tallaabadaasi? warkayaga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. xogo dheeraada, sira qarsoon iyo weliba warbixino xasaasi ayaa qaybta dambe ee warkayaga ku maqli doontaan daawadayaal. sidoo kalena jenaraalo iyo saraakiil ciidan ayaa ku dhammaaday shil diyaaradeed. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroona. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo shirka wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta uu furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaana wararku ay sheegayaan in shirkaasi ay jiraan qodobo la isku mari laayahay iyadoo madaxweyne Farmaajo uu fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa hadal dardaaran ah u jeediyay madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay ka qayb galay shirka wadatashiga ee uu madaxweyne Farmaajo maanta ka furay magaalada Garowe. waxa uu tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muhiimadda ay leedahay in wadajir looga arinsado arrimaha muhiimka u ah horu socodka iyo waliba dowladnimada dalka, isagoona ku bogaadiyay madaxda sida ay uga go'an tahay ka miro dhalinta himilooyinka shacabka. madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka arinsanaya sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo iskaashiga lagu horumarinayo dalka, mideynta cadaaladda lagu xaqiijinayo amniga iyo dagaalada ka dhanka ah al-shabaab. maamul goboleedyada qaar ayaa dhaliilsan hanaanka maamul ee dowladda federaalka iyo macaamilka ay kula sameynayso dowladaha xubnaha ka ah federaalka. maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa go'aan lama filaan ah ka gaartay kiisas culus oo loo heysto saraakiil ka tirsan dekedda Muqdisho. maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan ka soo saartay dacwad loo heysay saraakiil ka tirsan dekedda Muqdisho iyo ganacsade kadib markii la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir. maxkamadda ayaa saraakiil ka tirsan dekedda Muqdisho iyo ganacsade u xukuntay inay wax dambi ah gelin kadib markii ku guuldareysteen xafiiska xeer ilaalinta inay maxkamadda horkeenaan cadeemo ku filan ee lagu helay eed ay u soo jeediyeen muwaadiniintaasi. maxkamadda ayaa 5 eedeysana amartay in xoriyadooda dib loogu celiyo halka ay 2 eedeysana kale oo maqanayaal ku celisay dacwadda maxkamadda darajada koowaad maadaama aan loo marin habraaca dacwadaha dadka maqan sida soo qabasho ama baafin iyo wixii la mid ah. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Abshir Cumar Cabdilaahi ayaa aqriyay go'aanka maxkamadda. dad shacab oo qasaare xoog leh ka soo gaartay gaari ay saarnaayeen oo miina kula qaraxday duleedka Muqdisho. miinada dhulka lagu aaso ayaa la kacday gaari ay dad shacab saarnaayeen oo marayay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. sida wararka aynu ku helayno gaarigan la qarxiyay ayaa waxaa saarnaa dad shacab oo ka soo raacay deegaanka Cabdow Dibile ee duleedka degmada Afgooye. gaarigan ayaa waxa uu ku soo jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, wuxuuna ahaa nooc ay Soomaalida u tahay ama ay u taqaano hoomey ama caasi. dad goobjoogyaal ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay qasaare xoog leh oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee saarnaa, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dadka saarnaa gaarigaasi oo la sheegay inuu intiisa badanba gubtay. qaraxyada miinada ee dhulka lagu aaso ayaa marar badan waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona qasaaraha ugu badan uu soo gaaro dadka shacabka ah. dhanka kalena al-shabaab ayaa afduubtay mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland. waa kuma mas'uulkaasi magaciisa iyo xog dheeraad oo ku saabsan sababta loo afduubtay ayaan idiin soo gudbin doonaa. siday wararka ku helayso warbaahinta wararka Soomaalida, xogo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa afduubtay mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Jubbaland.
mas-uulka la afduubtay ayaa waxa uu ahaa madaxii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubbaland ee uu qaabilsanaa gobolka Gedo. Marka ay kooxdu afduubinayeen mas-uulkan ayaa waxaa la soo sheegay inuu ku mashquulsanaa diyaarinta imtixaanka dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland. Mas-uulka la afduubtay ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ibraahim wuxuuna ka yimid Buurdhabo oo ka tirsan gobolka Gedo. kooxda al-shabaab ayaa Maxamed kala degay gaari uu saarnaa weli ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga halka ay al-shabaab geeyeen mas-uulkan la afduubtay. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada weli kama hadlin afduubka madaxii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubbaland ee uu qaabilsanaa gobolka Gedo. sidoo kale kooxda al-shabaab kama aysan hadlin afduubka loo geystay madaxii waxbarashada maamulka Jubbaland ee gobolka Gedo. wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray ayaa sheegaya inuu socdo wada hadal la doonayo inay al-shabaab ku soo daayaan mas-uulkan iyadoo loo marayo odayaal ay isku beel yihiin oo ka tirsan. safiirka Jabuuti ee Soomaaliya oo ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti iyo tallaabo ka careysiisay Jabuuti oo ay villa Soomaaliya ku dhaqaaqday. haddaba waa maxay tallaabadaasi? xildhibaanada aqalka sarena maanta waxay warbixin xasaasi ay ka dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. golaha aqalka sare ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha aqalka sare. kulankan oo uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa warbixin looga dhageystay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka dalka. gudoomiyaha guddigaasi mudane Khaliif Cabdikariim Maxamed oo warbixin ka horjeediyay xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa sheegay in warbixino kala duwan ay ka soo ururiyeen meelo kala duwan oo kamid ah dalka haba ugu badnaadaan ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan deegaanka ama degmada Beled Xaawo halkaas oo muran xooggan uu ka taagan yahay. waxay sheegeen in Kenya ay ku soo duruqday dhulka Soomaaliya isla markaana 100 kilomitir ay markaasi dhankeeda u weecsatay. waxa ay sheegeen in muhiim tahay in xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay xil iska saaraan sidii loo ilaalin lahaa sharciga dalka iyo waliba xuduudaha isla markaana sharciyo adag ay uga soo saari lahaayeen. ugu dambeyntiina jenaraalo iyo saraakiil ciidan ayaa ku dhammaaday shil diyaaradeed. diyaaradda nooca qumaatiga u kacdo ay leeyihiin ciidanka militariga dalka Venezuela ayaa burburtay waxaana ku dhintay 7 qof oo saarnaa sida uu sheegay wasiirka difaaca. diyaaradda ayaa ku duushay magaalada caasimadda ee Caracas waxaana ay u socotay Conjocas ee bartamaha dalka ku yaala, balse wax yar kadib markii ay duushay ayay ku dhacday meelan sidaasi uga fogeen caasimadda. waxaana ay bilowday baaritaan lagu doonayo waxa shilka sababay. madaxweynaha Nicolas Maduro oo ku sugnaa gobolka ay diyaaraddu u socotay ayaa daawanayay dowlatus isxigay oo ciidanka ay dhigayeen. khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayuu ku sheegay in ciidanka Venezuela ay muujinayaan siday u diyaar yihiin inay ka hortagaan gardarada dalka Mareykanka. dadka dhacdadan ku dhintay ayaa isugu jira 2 jenaraalo, 2 kabtan, 3 korneel, 3 xidiglayaal iyo askar kale. guud ahaan warkii aad kala socoteen janalka wararka Soomaalida daawadayaal waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar janalkan. sidoo kale haddii aad horey u saartay waad ku mahadsan tahay. qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb. waana mahadsantiin. Audio